marwadan magaceedu waa Muniba Masaari. waa mid ka mid ah dadka ugu cajiibsan dunidan aynu ku noolnahay. waxay soo martay dhibaatooyin ay adag tahay in qof bini'aadani uu soo maro. haddii qofkaas uu soo marana ay adag tahay inuu ka tallaabsado. Muniba Masaari waa gabadh da'deedu ay tahay maanta 34 sano. waxay u dhalatay dalka Pakistan. waxa ay guursatay markii uu sanadku ahaa 2008 iyadoo da'deedu ay aad u yar tahay. habeenada ka mid ah waxay safar u baxeen iyadoo ninkeedu meel aad u fog. dalka waxa uu ahaa Pakistan. gaariga waxa waday ninkeeda. markii ay habeennimadkii noqotay ayaa ninkeedu waxa uu kula looday gaariga isagii laamida saaran ama wadada. kadibna gaariga ayaa isla rogay oo sidaas ayay shil ku galeen. meeshu waxay ahayd meel cidlo ah oo aan cidi joogin. laakiin nasiib wanaag ninkeedii waxba ma uu noqon. Muniba Masaari waxay tiri markii aan shilka galay xaaladdu waxay igu noqotay mid adag. waayo waxay tiri waxa uu cusbitaalku ii sheegay in jirkayga 50% uu burburay ama aanu naf badan lahayn. wixii intaa ka dambeeyay waxaan cusbitaalka ku jiray 2 sano oo xiriir ah. ugu dambeyntii waxaan ka soo baxay anoo wata gaarigan culiyaamiinta oo aan kici karin. waxay tiri waxa kaloo la sheegay inaanan maanta wixii ka dambeeya aanan dhalayn oo dhalmadu ay iga istaagtay. waxay tiri markii aan muddo badan sidaa ahaa ninkaygii waxaan arkay inuu iga niyad jabay oo uu rabo inuu gabadh kale guursado. waxaana uu igu yidhi warqaddii baan ku siinayaa oo waan ku furayaa. waxay tiri waxay igu noqotay sheeko adag. waxay tiri waa sababta ay reer Pakistan igu bixiyeen marwadii birta ahayd. waayo waxay tiri waxaan noqday qof curyaana oo lugaheedii weyday, qof aan waxba dhalayn, iyo weliba qof weyday qofkii dhibaatadan oo dhan u geystay ee garabkeeda taagnaan lahaa. laakiin waxay tiri waxaan go'aansaday inaanan calaacalin oo aanan ooyin, laakiin aan noqdo qof mahadnaqa. waxaan ka mid noqday 100 hablood ee dunida ugu saamaynta badnaa. waxay noqotay qof dhiirigelisa dadka oo dhan. waxa daawada dadyo fara badan oo dunida oo dhan ah. Muniba Masaari intaa wixii ka dambeeyay waxay noqotay qof model ah. Muniba Masaari waxay ka mid noqotay shaqaale weynaha qaramada midoobay. waxaana ay tiri nolosheedii waxay noqotay mid isbedesha. waayo waxay tiri wax walba waan helay oo wax walba waa ii fududaadeen. waxay tiri qof walba oo raba dunidan inuu guul ka gaadhaa kuma xidhna inuu ahaado curyaan, kuma xidhna inuu ahaado qof jilicsan, kuma xidhna inuu haysto $malaayiin, laakiin waa inuu u diyaar garoobaa inay noloshu leedahay dhinac wanaagsan iyo dhinac xun labadaba.